عارضة إنه وأي سنتها واي معارضة وشيء جري هرتو ويانو واحد الله يلا واحد محي هيدي منك بمضى حوال عارضة كذا ولي بقى عارضين يسكون العارضة يقابك وقف يعني وحوي واحد بقادين يا قضية دي برجع دويتو إسقف صدي أم علماء أها أم صلاحين تأها أم بيع مشاركة أها كل معارض وتجاي كل مدحمينها وتجاي وقابك الشرع الإسلام وقول لها إن مضى الله طريق أما هكا قاتو أما يانو قاعدني لكن إذا واجب كاجد لما يستا صدايا أنا قلنا لطهي قاد في عمي أضياء ساسي أيكوك يعني أما الله يلا أما يان ليل عاد بنقول بقادني يا أضياء عين كاسية لكن ما أها إن لا يلا هذا أن دول خدقنا لا يلا أن بابين لا يلا ما أها إذا قف نكمل لدورته أما كمقدس جوجا ما انتهى هذا أما كينا سومالنا جوجا هذا سومالي وإسكو ظروف بين وضعنا إسكو وضع بيننا ninka madaxeehe la doorto wax xilka laga qaadi kara oo kaliya maalinta ninka la doorto maalinta uu baa maxay hayday oo baa laga qaadi kara xilka sidii kuwii hore loo doortay laakiin ka dhaqaaqun kuma doonayno waa fiidadiisa Uthman waa fiidan aynu ku baaba'ayno innaguna waynu ku baaba'ayna arrinkaas haduu sidaa u socdo waxan buu ina dhaxalsiinaya waliba awliyanimada ku sheegi maayo anigu waan ku riyoodan oran maayo laakiin waa aragnimo cimri ima harsanay 82 baan ahay haddii mudaaharaadada iyo waxaas ay joogsan waayaan oo dhimasho dhacdo oo bixi dhacdo oo isaha laba dhacdo oo ay joogsan waayaan waxa la yeeli doonaa maadugtii yanu soomba iman doonta yanu soom hal keenaa loo dhanay xamar kolkii sidaas ay dhacday fawdad ay dhacday maxay ciidanka yanu soom ugu horreeyay Pakistan iyo Masar maxay ku yimaadeen war dadkan dhiigiisa qaboojiya United Nations baa soo galiyay hal la geeyay baa leeyahay walaalaheena xamar wadada walaalnahay weeyaan wadada isku jiidnahay وضدنا اسكو دمقنين iyaga waan ka xunay dhibaatada gaadhay la shaka inaga teenowi ka xigeen oo eegan maayaan oo oran maayaan hay islaayaan meel ka filaysan inay yiraahdaan la kama filayo anigu way wadad Soomaaliyeed weeyaan waxa kaliya yiraahdaan waxa weeye maanta awood ma lihin dadka iyaga aanu ku kala celinay jamciyadda quruumaha ururka Afrika igaad jaamacadda carabtu ciidamaha noo geyso hal noo qabto inta aan bay soo jeedinayaan oranaya إنه دولدي اللي أقول يوم المتحدة اللي أقول هاي والله حريقون الله حلونا لين يونسوا مهلك يكون كردي جوكسن واين أو بوقي يدقالك يرب شيء وهذه لا سمح الله إلهي كمان دقو لكن هدو حاس جوكسن واين وحاصل لين مدبان شيء قبل الله دحوي شيء أنا أفضل إذا ماذا جيبوتي بنقول والله أوران دونا يونسوا مت جيبوتي هلا لقى جيبوتي هلا جيبوتي ولا لا هي أفضل كما قبلنا عبسنا كما قبلنا أود اللام قولي يورجيتين هل كان البورك كير تفضف دونتاي أو دونتا أود اللام تي بعضي هل كان البورك كيريدي دونا أو البورك كجف دونا قولنا هي صولنا إمارات كيو أنت بدن دولو وحيو إيجان ظروفه وإيجان وضلك يدريان وحيو إيجان جنسيس النوع عيسى إمارات كيو حلورن السودان بوجود دوي إيجا عيدان ويونس سما دولدون عاد بوجعلهم عيدان كجمعية القرون وعيدريان ودي آلاف الدولار بالصينية iyadoo dawladii la fahday oo dayacan iyo hadii la yiraahdo ciidan inuu Soomaaliya laga qaadayo jimciyada loo diraya waa la kala boodaya dawladdu dhaqaale weyn bay ka helaysaa gobolada dhaxana waxa loo diri Suudaan iyo Imaaraadka la oran iyaguna khaatimay boorka ka jafayaan gobolada dhaxiya loo soo diri reesha qashaaqa u dhageysta ilaahay horta kama dhigo cadu ilaahay inoo jabiyo ilaahay khilaafka hay naga qabto khalqalka Allah inaga qabto midnimadeena ilaahay ha adkeeyo hadii sida aad u socotaan aad ku wadaan oo ninka madaxweynaha la doortay adeedin qoortan soo qabanayna baan ka maqlaayay nibaan ka maqlaayay maan dhaweyto Sheekh Ibrahim ba Cabdiraxmaan qoorta soo qabtay adna qoortan ku soo qaban buu war Cabdiraxmaan codun baa laga helay qoorta soo qabtay soo kiisi sharaf loo iskaga baxay ee kulkii codkii ciyaal la qaadayo uu iska baxay wax alla wax dhibaato uu sameeyay wax caro uu sameeyay ninkaas gobonimadiisa haba yaraatay iyo xanaaq uu sameeyay midna ma jiro qoor soo qabatay ma jiro nibaan maqlaayay laha waan ku soo dhicay qoortan ku waan ninka hada ciidanka RUD iyo police-kii iyo military-gii iyo haysta hadii reernimo la yiraahdo isna reeraha oo reernimo lagu soo weerarana reerihii kale ay wada diyaarayeen Soomaaliland oo dhan ay meesha wada joogan iyo qoortan ku soo qaban aw niyid marka qolada gobolada dhexe ayaa loo soo diri waxa la oran waa laga tashanay waxa la oran qolada gobolada dhexe waa nimankii dawladdiisa aad bari ee geeska libaaxa Afrikada bari ahayd waxa hore xil islaas lagu tilmaamayo libaax Afrikada bari loo jiray laakiin sabankii wixii ka dambeeyay Soomaaliya oran jiray dawladda Soomaaliyeed baa loo jiray waa libaax Afrikada bari ayaa la oran jiray waqooyi libaax Afrikada bari ee dawladdiisa aad bari markaliya jeeday yaa loo soo xulaa iyaga Rwanda iyo Burundi iyo Belgium iyo Mareykan iyo أحمر كجوجام يا جوندر إيو
nooca u xulaa la odhan noocaasa hargeysa burcaba lagu soo daadin ilaahay kama dhiga waa haddaan ka joogsan weyn war waxaan yeeshaa war cadow haynoo loogina war taariikhdii beelaha kala rabshadi kama dhacaysa waa idinka reerka dhexe weeye waxa rabshada wadaay madaxweyne ad wadaan oo leeyihiin kanaan maanta meesha fadhiisinaynaa وحق بعض الذين عارضان أو ترى أضمن دورتان أو أما عبد الرحمن لكان أما فيصل لكان رجع ترتمي أما قوة كلا إلا شيء جيو حق بعض لوليه لكن إن الله يراه هذا يسوق أو شرعي عن لجيه لسه هو بحوان قاعدين هاي نكعين كابليس كاهيس من القضاء اللي لابن لبسه دافع دافع كريس أبا أنا جينا هدون البليس كلا كوبا إما به قضاء يراه من صباح أروي الله يراه أي عيد وبضل المري شعب جناه يعني لوجوين أو الأورن محيط الدجالم الأورني لكن هل الدون أو النظام يوحون هل الدون قاب هل الدون وحنسوا جيرين يا طلع مدح محيط القدومية حزبك أوعد فيصل علي ورابي بالله هذا أيات كل هذا هي نبت قليل الصومال لان كان عادات كل هذا لبضي خلاء مرحوميتي ويدين عبد حسن يا حسن بيقول فهذه أيها كانوا بالله ده الذهب كأيها هلكا كوجو حراني يعني كان نقول مار يعني كان نقول قدوميها كلا حزبك وضن حرس الحاج علي استقرا والله حرسه إن كان أورن جريبة تاعي رجل الغد رجل بري وضن كوجعني كيس النقد دونا صبر يد القاع يا صبر يد القاع يا صبر يد القاع يا وحنا له هي قدوميها حزبك الدولة ده محمد كاهن الأحزاب كهذا يعني كما هذا يركض كله محمد كاهن وحنا له qolada anigu aan taladeeda ku dhiibanayo ee golayaasha wixii golayaasha ka soo baxa golayaasha sharci dejinta guurtida iyo wakiilada wixii ka soo baxa xisbigaagu haw hogaansamo al hal waxa igu dasoo saddex qodob baan ka hadlay maan al khilaafatu fil islam waan ka hadlay al ahdath al jariyah fil bilad waan ka hadlay deen wax dhaaf kale waa laga yaabaa daadaba anigu leh hal anigu waxa igu muuqataa arintaasi dadka ma dhex taalo shacbigu arintaa waa inuu ka fadhiisto faraha ka qaado salaadiinta odayaasha cuqaasha wax garadka iyaguna waa in arrinka farta ka qaadaan yaa lagu ogyahay hadaba waxa lagu ogyahay golaha guurtida iyo golaha wakiilada ee la isku ilaa baarlamaanka la isku ilaa iyaga lagu ogyahay laba oday oo qiimo leh ayaan ku ogahay mid waan wada shaqaynay midna inta yada imika aan bartay waa nin qiimo leh salaaxiyaadka guurtida ayay kamid tahay xaaladda caynka ku dalku marayo in iyagoo baarlamaanka iska kaashayna ama gooniba ha noqdaan ama wadajirba ha noqdaan wax qaraar soo gaara oo inta guurti u fariisataan hal gaara wadanku ku noqdo shacbiga mar labaad baan ku noqonayaa walaalayaal dinkuna shacbiga wixii ka soo baxo golayaasha baarlamaanka ka soo baxa ha loo hogaansamo gobol kastaaba ha u hogaansamo oo habadho yeynaan noqonin dad dib u furfura wixii ay soo dhiseen yeynaan dib u furin marka dib yaan loo noqonin war hal la dhowro oo hal la ilaaliyo oo nidaamkeena aan dhowrno oo aan is ilaalino oo aan dhowrno waxa lagu hadaaqa oo la ilaa i'tiraaf baan doonayna waa la leeyahay waxaana waa la sameeynaya walaalayaal waxaan mar labaad idin soo jeedinaya ilaahay baan idinku dhaariyay ragiina buuqa sameynayo dadka soo kicinayo hal buuqalaho maalintii dhooyitaan eegayo dadka soo kacaya dhalinyar un bay u badnaayeen dhacyar un bay u badnaayeen walaalayaal dadka dejiya oo hal dejiyo wixii aad wax ku doontaan ha noqdo dariiqii kulka horeba aad ku doonayseen ee silmiga ahaa ha noqdo ee nabadgelyada ahaa ee awalba aynu ku soo caalmaalay ha noqdo idinkana sidaasaan idinku adkaynaya walaalahena koonfurada sidaasaan leeyahay mucaaradada xambaarsan mudaharaadka xambaarsan mucaaradadu way jirtaa madaxa waa la caaridayaa waa lagu hor imanayaa waa la diidayaa oo sidaa yeel baa la odhanayaa laakiin mudaharaadkaasi waa wixii khilaafadii islaamkii dhibaatada weyn gaarsiiyey waqtigeena xaadirka ana dawladaha islaamka wuxuu ka geystay loo ogyahay haday Suuriya tahay haday Liibiya tahay arrinka walaalayaal halka ku joojiyo kala tiraahdaan ardayadii waaweynaa waa naga codsanaa tiraahdaan oo odayda ducadeedan qaadanay tiraahdaan waxaan soo jeedinaa gudoomiyaha labada xisbi waa ilaahay haydan asturay anagana hadalka aan soo jeedinaa anagoo masaajidka weyn joogna nagu asturo oo walaalayaal joojiya arrinta mudaharaadka inaga joojiya sidii kale wuxuu doonaysaa u doon